السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالية كسو دبادة تيم وحينا نهاي ما تنحاول تشتغل تاني. ما أنت وحنودنا رياكشن وحنون بدن ونجا ده أمود ده بس وقعتوا أنا كلمة الناس وقعتهم وحنا واي رياكشن وحنكودنا فهيمة يا خضر marka fiimay qadad lagu dayday ahayn dad tusaale fiican Soomaali u soo bandhigay ahayn gadaal maxay ka sameeyeen way ka dhiiqadeen marka waxaan leenahay asxaabteena qaaligan la daawada sayid oo taageer jirtay wallahi bilaa waa aniga ku taxnaa dadka aad jeclaaba ay ahaayeen marka dadka dhiirigeliya ahaayeen sidii umada ay u soo jiidan jireen hadda dislaaga ku bataaliyay saan maqlaayay meeshii oo like ay ka heli jireen maadaama ay ayaga dhexdooda ay hoola badan ka sameeyeen ka baratay anagoo dee fikirtaankooda ogaa baa haddana waxay noqotay baraank okay baraankigood misiga amsan ceebo dhibaato codada soo bandhigo wallahi in adeerkay aad aan wax xumahay inaan waxaas kala gabar Soomaaliyeed ku sameeyso oo wali xaaskaaga aad jeceshahay wax ma ka leeyahay dhahayan kuwa dhiiqoweyn. السلام عليكم أنا نقول تلماذا يا ويفوليو مركا ولا شيء قال وحنا قبيلة درجة أنا قلت إنه كل هاد درجة هذا نسيد ورثة على سوماليات كارهان وريه خضرو وريه بشار علي باندي وريه إغلان شو يدمان كوحد حوتش أو عن كمية هاي دمان تناد بعدين سلامية sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ma doonayo inaan insha Allah waxyaalo mowduuc dheer ku hadlo wax yar oo kooban waxaan idin leeyahay arrin baan rabaa inaan ka hadlo insha Allah aan jecelahay inaan soo gabagabeeyo yani markaan idin leeyahay waxa weeye wixii xumaan oo naga tageen wixii nagu dhacay way nagu dhaceen wax allaale wixii isoo maray nolosheeda qayb kasta wax ugu qoran bay ahaayeen qoraalka rabbina lama koobi karo lamana celin karo waxay ugu ahaayeen waxay u dhacay oo qoraal ah qofku laba jeer inuu ballan qaado ma fiicno marka aad faraxsan tahay aad u faraxsan tahayna ballan ha qaadin marka aad u careysan tahayna ballan ha qaadin waayo labadaas ballamoodba emotion baa tahay xaaladaadu ma sugna maxaa nooga muuqda in dad lagu dayday ay ahaan jireen hadda dad isku faraxsan oo maasha Allah ay waaye videoga markay soo dhigayeen after 30 minutes video kale gabadha soo dhigtay ay leedahay إلى قدر هو يفهمي وتويجا قاعد فيديو مركو إذا قاعد وإذا تجي مركو ماشي تجي فيديو قد سوي كلها هذه شيكا فهمي سنة كلها تيسير والله يا باي وتح الفهم ترى ما قد وين أو حشودة أقدر من ذلك الويل كويل أبوانا أو ويل بالشدة كله مقع ما فهمتي ما ذلك يا ما ذلك أنا حكي عن قصة هاي ويلكم مركو عضد كلي قاعد يسوي إصدار صغير وضي عضد من حارس بدن كل هاي السجع مركو صادق براه بشر عياد وغنها ما يلا نفتي هذا قف دوين يقف هذا ما تفهمه ويرتل ده هاي معها إن ونكهل إمارة وفيديو كبرته هذانا تجي ماشي وهذا مركو تجي هذانا وسام ما ترى يلا ولا أنا شيكا أفهم كرما إلى أهم سببين والشيكا هو يبين لا ما تسمعله وأنا قررت ما تسمعله أنا وحمد لله لا ولا هذا بني حيلاتين الجوال هن إن هو كدوين هو دي أكو جدي مركب لما نمد الصوماليات وحن ليها إن خلط كأنيجا وانقرتي waxaan aad uga xumaahayna way runtii laba saddex habeen ilaa hadda ma seexan xaaladan waxay u noqotay xaalad adag ninka ragga aan xaalad adag ugu maraa laakiin waa laga gudbaa insha Allah waana ka gudbi doonaa laakiin koobka haba la siiyo ma xumee koobkooda u ogolna inay koob qaataan maxaa gadaal ka soo celiyay hooshooda taas ay isweydiin mudan inay iyada ooydo oo deeqraacan soo dubto oo dumarka Soomaaliyeed dhan la ooyaan oo shalay ay garabkooda ahaayeen maantana oo isagana soo dhigo codadkii ee 10 sano hadda aragtay jaamacadda xaajo baro anaa dhabarka kugu qaaday anaa kuu shaqeynaayo ee amaleynay inuu ahaa qoraaladii uu soo bandhigay walaalkan qaali ummadda Soomaaliyeed dhan de wax la wada arkay waxana gaar aan aragna maaha marka waxaan leeyahay walaalkii
cimaamada waa kaa dhacday ilaahay ha ku xifdiyo wax kale aan ku idhaahda mala wallaahi wax dhibaato badan dumarka badanaa dibadaha jooga qurbaha joogana rag dambe ee aaminaan ama afrika ay maya abo meeshaada joogay dhahayaan meeshan kugu biilaan jir oo joogo yurubaa kaaga rool 20 jir joogo haya dhowr xina qaadatay dibadda geysay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay isku qaadina rag dambe isku qaadina because of sida fahiimo maanta loo galay idinkana nali galay laakiin fahiimo bay marka hore way fiicnaan dad isku fiican ahaayeen sheedaan baa horta dadka sheedaan baa ku jira laakiin isaga hadda ceebaysan gabadha horta wallahi ma ceebaysna maadaama musaygeed intuu u yeeray meel wada tageen ay video wada duubeen video soo dhigay dib ma laha fahanti waxaa dhiba u baxay waxaa dhiba codadkii labadooda sir ahaan hoos iskugu direen isabka oo adduunka wareegaya taasaa dhibaato ah walaalayaal codad bis ma aha hataa gabadha iyadoo calaacalaysa waxyaalo badan aa ku jiro meeshan marka waa laga yaabay nimankii hadda sanadadan dambe misdheesaa rag way xumaanayaan rag ma jiro rag waxaa u dambeeyay aabahay aabay u dambeeyay rag fiican aabay u dambeeyay saab waxaan uga seexan waayna wax kale maahan dhammaan bulshada ila soo xiriiraysa khaladkayga la tusay dhan walba la iga cadeeyay inaan yacni wax xun ku tilaabsaday qofka bini aadamka malaa'ig maahan u khaldama wallahi mana iga ahayn wax xumay xaladhaladii aawa qadar oo adaa ku weydiinaya walaalkay qaali xaladhaladii shalay kuwa ahayd dadka ay kaaga qiimaha badnayd oo shalay ay timaha kugu jaraysay ama kuwa caana shubanaysay ama ragga kaaga uga wanaagsaneed ragga Soomaaliyeed oo dhan caawo ya maxaabaa looga dhigtay gabadhayadii oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan dhexeysay inay codkeeda soo bandhigto teeda kale wuxuu badhaal leh qof weyn baa tahay isma qaadi karno warweynaad shalay sitaa ku guursatay maxaa ku bedelay oo dadku waa isguursan waana la kala tagaa dhib ma laha maya weynaanta uu shalay arki waay maanta muu arkay wala ragga Soomaaliyeed ee saa u bato wax la sameeyo lama shalay halu arki waay weynaanta maanta uu arkay wiilkan shalay buu u jeeday iyadoo weyna guursatay waa kana codadka waxaana yacni codadkii aan soo dhigayna xumaan kama wadin waxaan rabay bal sida aad inaad ogaataan ama aad aragtaan sida aniga walaashay xaalkeenu yahay aan u xiriirno qorshayaasheen u jeexan yihiin aan isugu wanaagsannahay unbay inaga ahayd in aan tusamaahane ma iga ahayn wallahi marka anacsanaysa ahayd gabadhaas oo ninkeeda jeceshahay oo ninkeeda dadka uga qiimaha badan yahay laakiin walaalkeen muxuu ku sameeyey hal bacaad lagu lisay ayuu ka dhigay darajadii uu u samaysay ama wanaagii u samaysay marka walaalkan qaali waxaan leenahay wax qurux badan ma aha wax fiican ma aha wax qiimo ma aha waxa aad samaysay xalana inuu soo galaan u malaynayaa barnaamijkii soo geliyay uu leeyahay Soomaaliyey waan qaldamay qaladkeygii waa qaatay cimaamada igu tuura maxaa cimaamada lagu tuuray cimaamada iska tuuray asaga badahaniya cimaamada xale maraan arkay YouTube-kiisa marka walaalkan qaali waxaan leenahay waxaas wax qurux badan ma aha shalay wiil Soomaaliyeed ahayd oo la jecel yahay oo adduunyaha wax u soo bandhigay wax ugu dayda ah dadka saa'id u jeclaayeen wiilkaas maya asaga wuxuu leeyahay in la igu daydo caalamka la igu dayda adduunka u jeclaa hada la igu daydo maxaa dumarka gadaal wada carreen jecelkii wala roor loo jeclaa si kala ordooyaan la aadni dartaa dad badan hadda baraanka ku kala maqan miya ma rumi u kala maqan yihiin dadkii hadda taa laga aaminay froogi iyo waxaas oo laga aamin bixin labada qof hadda kala maqan waxa la baraanka ku kala maqan yihiin maya ninkan ani waxa oranahay wax qurux badan ma yahay xaaskaaga xaliso cidna ku xalin mayso xaaskaaga marka walaalka qaal waxaan ku leenahay bulmaadaad sii cish xalan ku raanaa malay la qof nacsoobay baa taa qof imaamada ka dhacday baa taa wax lagu tilmaamo mara dumarka Soomaaliyeed ayadana meel bay nooga dhacday adigana ragga Soomaaliyeed meel baa uga dhacday marka waxaan oran lahayn gabadha maxaa ugu dad waaweyn inta iska dhigtaan reerkiina xalista cidna ii xalinaysa male laakiin waxa qurux badnaan lahayd adoon cod soo dhigin oo dadka gabadha ceebeen inaad tartiibina xalistaan gabadha maxaa dhihi lahayd gabadha waxaa la qof weyn baa tahay xishow adii laftirka waxyaalaha ceebta oo banaankaaga yaal oo ninka aad leedahay waa baraankii dadka aan nacasnimo ku tilmaamaysa waxaas wax qurux badan waa shalay anaga waa kuu helaneen
ina dhahdid uu fuliyo iyo sheeko ma fiicneen qofka marka walaashin waxaan leenahay adigana qof adkaysi la noqo qof nolosheeda dabran kara noqo walaalkan waxaan leenahay reerkaaga xaliso intaasaan kusoo gabagabeynaya gabadhaan lama aha gabar adkaysi badan lama aha because of haddii adkaysi badan in video laga qaato lagama soo dhigi lahayn teeda kale aniga ninkeedu way aaminta Soomaali haddii aaminta lama aaminaayo go-aankii ku aamintay inay ahaato iska aamusta ahayd isla daqiiqadii after 30 daqiiqo video kale soo dhigtay ee calacalayso oynaysa dhayso uu isirtay dumar baa dhahay qalbigu iga xalay marka الله نعبدي أصحاب تقالي وحكلا نرانا ما نقدر نقاشين حاليا إن شاء الله ريتنا حاليا إلهي يدي شلس أسجع لنا قول أسجع النقطة كستو صار ما أنت دونك عيب تعب هني تاو أكو عندي لهم ولكن عدا سوع شد وهن محمد تختي نروع ووع ما تكن على طاي قبدي سوماليت ودم هذا ذي ولا يبين غير هذا ناقول بهت حكاية من بحينين إني أفريقيا صوتت سبحان الله لما كويلا شيرين كا قدرتين دك marka asxaabteena qaaliga halkaas ku soo gabagabeynaa barnaamijka walaashin qaali walaalkeen waxaan leenahay ilaahay sida hore aad isku eedeen Allah naga dhigo inaan reerkeen bisnaad aad u jecelnahay laakiin ceebta iyo waxyaalaha soo kale insha Allah inaan arag ilaahay ka rajeenaynaa haddana waxaan leenahay mac salaam subscribe ka share ka like wadintii tugsashada daway socotaa weli subscribe ka like ka comment iyo share ka inta waa xageena si share gareeya dadka walaalihiina gaarsiiya wixii ra'yi ah qabtiina comment-ga noogu soo reeba because of dadka waa qaldami karnaa anaga bini'aadan baan nahay wixii aad ka qabtiin ra'yi ah khudbadeena hoos comment-ga noogu soo sheega subscribe kana walaal nala dhaafin haddaan nagu cusubtahay haddaan nala joogtana welcome